runtii wafdiguna aad bay uga heleen soo dhaweyntan oo siday u maleynayeen iyo siday u filayeen Somaliland horumarka ka socda maanta waxaad muujiseen runtii gobonimo iyo soo dhaweyn sharaf iyo karaamo leh maayarka magaalada Gabiley Mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdiweliin qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ayaa magaalada Gabiley caasimada gobolka ku soo dhaweeyay wafdi ballaaran oo ka socda dalka Cameroon oo ay horkacayso Saamiye Muuse waxaana wafdigan ballaaran ay kormeer ku soo mareen horumarka iyo waxqabadka xilligan ka hana qaaday magaalada Gabiley caasimada gobolka iyagoo kormeer ku soo maray xarunta dawladda hoose ee magaalada Gabiley iyo qaabka u shaqeyso iyo sidoo kale xarunta maktabadda qaranka Gabiley iyo sidoo kale mashaariicaha kala duwan ee ka socda magaalada Gabiley sidoo kale waxay kormeer ku mareen magaalada ganacsiyeedka degmada Jale oo xuduudaha Soomaaliland iyo Itoobiya wadaagaan waxaana wafdigan ay ka koobnaayeen xildhibaano iyo sidoo kale maalgashadayaal kala duwan warna waxa halkaas ka hadlay maayarka magaalada Gabiley Mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi oo dalka ku soo dhaweeyay wafdigani runtii waxa noo sharafa inaanu maanta halkan ku soo dhaweyno wafdigan culus ay hogaaminayso ambassador Saamiye inaan qurba jooga oo wadanka runtii wax badan xagga xiriirka dibadda iyo dadaalada arrimaha dibadda muddo soo waday haddana wafdigan keentay dalka si ay fursad ugu helaan inay wadanka wax ka ogaadaan wafdigan oo hogaaminayo MB Joseph oo ka mid yahay David iyo Augustine oo runtii nimanka yimid South Cameroon uu yimid wadanka inay aqoon dheeraad ka helaan isla markaana indhaynayaan fursadaha yaala aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa ambassador Saamiye Gabiley inaad noogu timaadaan runtii fursad bay noo tahay oo aan idinku soo dhaweynaynaa in wadanka soo booqataan Soomaaliland runtii waa wadan aan la ictiraafin oo weli ku jira halgankii uu ku heli lahaa aqoonsi caalami ah duruufo kala duwan soo maray caalamku inuu runtii xiriir la yeeshaana ay muhiim tahay inta badanna inaga ay nooga baahaynaan dadaal badan oo aynu adduunyadana isku baranno cidii aynu fursad u helay inay yimaadaan aynu sheegno waxaynu nahay iyo halkaynu ku soconno ay tahay aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa idinka mahad celinaynaa wax badan baa runtii dalka sida hadalladoodaba ka muuqata aragtida ka haysteen iyo aragtida ay maanta ku arkeen faraq weyn baa u dhaxeeya innana waxaynu waajiba shacab ahaan iyo dawlad ahaanba inaynu dadaallo oo aynu fariinteena iyo warkeena meel kasta gaarsiino dadka shaqaynaya ee arrimaha ku hawlan aynu u fudaydino marka runtii aad iyo aad baan ambassador adiga waftiga ku soo dhaweynaa ay hogaaminayso walaasheen Saamiye oo runtii inoo yimiday say wadanka u indhaynayaan iskugu jira MByo iyo daneeyaal investors runtii waxaan uga mahad celinaynaa Saamiye iyo tiimka la socday runtii inay noo yimaadaan wadanka ay arkaan si runtii ay u arkaan fursadaha jira ee maalgashi ee ka bannaan isla markaana ay runtii xaqiiqooyinka ka jira ee wadankani runtii iskii u qabsaday inay runtii soo arkaan waan uga mahad celinaynaa inay wax badan sidii ay rajeynayeen si ka badan ay runtii indhahooda ku arkeen dadka nimanka odayaasha jaanibka runtii way u qaadan waayeen waxa runtii arkeen in qiraan dadku haddii ay isku tashadaan in iyagu ay ka faa'iideysan karaan runtii wixii tamara iyo taalkooda iyo dadaalkooda ku jira haday ka faa'iideystaan in dadku wax badan qabsan karaan oo aanay cid wax ka sugi karin waan uga mahad celinaynaa runtii waqtiga ay soo siiyeen cid kasta oo hawshan runtii dadaal ka geysatay oo Saamiye horeysan runtii aad baan uga mahad celinaynaa Raxmaan Raxiim maanta sharaf weyn waxa noo ah in aan joogno gobolkii cagaarna uu qaabilay maayarka qaaliga ah Maxamed Amiin iyo xildhibaan Mursal runtii wafdiga ka socda South Cameroon oo aan wada soconay waxaan maanta aad ugu faraxsanahay in Gabiley aan soo booqanay oo maayarku nagu soo dhaweeyay runtii waxaan aad ugu faraxsanahay horumarka iyo maxaa la raahdaa daamka cusub ee